Ma ogtahay in qaar ka mid ah magaalooyinka dunida ay jireen kumanaan sano ka hor, xitaa inta aadan dhalan, inta aadanba ka fikirin? Maanta waxaan kuu hayaa 5 magaalo ee ugu qadiimisan dunida, kuwaasoo weli ay dadku nool yihiin. Aan kuu baro hal. Magaalada koowaad, Damascus, oo ku taala dalka Suuriya, waa magaalada ay taariikhdeedu ku qoran tahay. Gidaarka Damascus, oo ah caasimadda dalka Suuriya, ayaa la rumaysan yahay in ay tahay magaalada ugu da'da weyn dunida ee weli la degan yahay. Waxay jirtaa in ka badan 11,000 oo sano. Waxay ahayd xarun ganacsi, diin iyo xadaarad leh, waana meel ay isugu yimaadeen boqortooyooyin fara badan. Hadda weli dad baa ku nool, oo dhismayaashii qadiimiga ahaa qaarkood waa la arki karaa. Magaalada labaad, Jericho, oo ku taala Falastiin. Jericho waa magaalo ku taala daanta galbeed, waxaana qiyaas lagu sheegay in ay jirto muddo ka badan 10,000 oo sano. Waxay ahayd meel ay dadku beeraley noqdeen markii ugu horeysay. Waxaa lagu xasuustaa sidoo kale dhacdooyin badan. Magaalada saddexaad, Byblos, oo ku taala xeebta Lubnaan, waa magaalo si gaar ah caan ugu ah ilbaxnimadii Finiiqiyiinta. Waa magaalo xeebeed qurux badan oo leh raadad taariikhi ah oo weli dad badan ku nool yihiin. Magaalada afaraad, Aleppo, oo ku taala Suuriya. Aleppo waxay ahayd xarun ganacsi oo muhiim ah oo ku taala dariiqiga xiriirinta. Waa magaalo si weyn loo deganaa muddo ka badan 8,000 oo sano. Inkastoo ay burbur xoog leh kala kulantay dagaalkii Suuriya, haddana waxay leedahay raadad taariikhi ah, waxaana ku nool dad badan oo weli halgan ugu jira inay dhaxalkeeda ilaaliyaan. Magaalada shanaad, Athens, oo ku taala Giriiga. Athens waa halka laga aasaasay dimuqraadiyadda, waxaana la rumaysan yahay in ay jirto ku dhowaad 3,500 oo sano, waana meesha ay ka dhasheen falsafadyaal caalami ah. Maanta waa magaalo casri ah oo taariikhdeedu aad u qiimo badan tahay, loona dalxiis tago si loo arko ilbaxnimadeedii hore.